السلام عليكم أحبابي ميل والبا جوجتان وادين سلامي كسو دوادا جنرالكيغا دكتور سجيا waxaynu maraynaa muuqaalkeeni oo ahaa soo raacsiga ama uterine prolapse maxaa keena raacsiga minka hadii aynu gudgalno muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay maxaa keena soo raacsiga minka biidmillaahi kariim minka waxa ku haya booskiisa murqo seeda ah oo xoog badan oo Ilaahay ugu talagalay wuxuuna soo bixi karaa oo kaliya markii muruqyadaasi ay ku timaado tibacsanaan taasoo keeni karta in si xajin waayaan minka uuna hoos ugu soo dhaco ama ugu soo laalaacsamo haddaba maxaa keena in ay dibcaan muruqahaasi uu minkana soo raacsama waxa kamid ah dhowr qodobo duqoobista waxay keentaa murqo dabacsanaan jirka ah oo murqo dabacsanaan oo jirka oo dhan ah taasoo ay ku jiraan murqaha wajiga iyo minka dhaawac gaaro haweenka xilliga dhalmada waliba kuwa dhashooyda ah waxyaabo kaalmeyn kara in murqaha ay soo raacsamaan ama ay soo dabcaan minka waxa kamid ah cayilka qunfaca iyo jiirayshada haddaba yuu ku dhacaa soo raacsimada minka wuxuu ku badan yahay uterine prolapse-ga haweenka dhashooyda ah ama haweenka dhalmadayska ah taasoo ka dhalata markii ugxansidaha uu howlgab noqdo asagoo joojiya soo saarida tiro badan oo hormoono ah ama estrogen oo xoojiya murqaha minka waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani fadlan hadii aad la socoto muuqaalkani sii share garay muuqaalkan like saar una sii share garay qaar kamid ah asxaabtaada waad ku mahadsantahay muuqaalkani wili uu sii socdaa insha Allah waynu soo gudbin doonaa haduu Rabbi raali ka noqdo